CEO Engineer Maxamed Jaamac soo dhawow. Waxay nooga bilowdaa insha Allah waxbarashada qaabka wax looga barto akademiyada Easy Way Learning Academy, heerarka ardayga uu maro iyo qaabka uu inoogu soo biiri karo haddii uu yahay arday cusub. Soo dhawow Engineer. aad baa u mahadsan tahay Dr. Hanad, aad baan kugu mahadcelinayaa. Si gaar ah waxaan u salaamayaa dhammaan leaderska iyo macallimiinta siyo sharmaanka caawa xisada igula qoran, ardayda oo dhan, asxaabta kale caawa xisada martida ku ah, dhammaantiin habeen wanaagsan meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. dabcan bacda salaan su-aasha haddaan galo Dr. Hanad uu yiraahdaa ku furfuraya caawa habeenkii su-aalaha dabcan su-aasha ah bal akademiyada hordhac ka bixi. waxaan rajaynayaa su-aasha haddaan ka jawaabay in su-aalo badan oo markaa la weydiin lahaa ama la weydiin lahaa inay hordhacaasi uu ku filaan doono ayaan rajaynayaa. dabcan ardaydu way og yihiin informationka haddaan bixinayo, laakiin asxaabta laga yaaba inay cusub tahay ama laga yaaba hadhowto inay YouTube ka daawanayaan ayaan rabaa inaan u faahfaahiyo. horta halkani waa Easy Way Learning Academy, waa akademiyad laga barto cilmiga suuqa adduunka ugu weyn ee maanta laga shaqaysto ee loo yaqaano Forex. marka halkani waa goob wax laga barto, waa akademiyad ujeedadu ay tahay in qofka la baro suuqa adduunka ugu weyn maanta laga shaqaysto ee loo yaqaano Forex. ardaygu markuu isdiiwaan gelinayo waxa uu bixiyaa lacag fee ah waxbarasho oo ah 3 biloodba hal mar wuxuu isku bixiyaa $210. ardayda qaarna waxay bixiyaan bishii $90, laakiin 3 bilood ayaa u qiimo jaban oo discount ayaa ugu jira. ardaygu markuu isdiiwaan geliyo waxaan leenahay levello waxbarasho oo WhatsApp group ah. waxaa lagu daraa levelka koowaad ee waxbarasho ayaa lagu daraa. isla markaana website-ka hadda hortiina yaala Easy Way Learning Academy ayaa ardayga waxaa looga sameeyaa user password laga siiyaa oo wax ku barto. sidoo kale waxaa lagu daraa qolka loo yaqaan active students ee ah qolka signalada iyo xisadaha live-ka ah la soo dhigo WhatsApp group. dabeedna ardayga markaa qaabkaas ayaa la casharada u diyaari. level kasta macallin baa gacanta ku haya oo casharada ka dhageysanaya oo gudbinaya ilaa uu ka gaadho levelka 8aad. wuxuu helayaa ardaygu sidoo kale xisado live signals lagu bixiyo maalinkii ilaa qaarsiga macallimiinta 3 jeer ay soo galaan maalmaha Isniinta, Talaadada, Arbacada iyo Khamiista 3 saac oo kala duwan, saacada 10 subaxnimo, 1 duhurnimo iyo saacada casriyaha. 3 jeer baa live signals ayaa la bixiyaa. waxa kaloo jirta xisad kale aad iyo aad qaali u ah oo xisada ardayda gacanta loogu fadhiisiyo oo macallin deeq u qabto alaaba 5 galnimo saacada Geeska Afrika ama Somali time, taasoo ah ardayga lacagaha uu falanqeeyay in laga hubiyo oo gacanta loogu fadhiisiyo lacagaha la jegarayo. maadaama ardaygu inta hore uu baahan yahay in gacanta loo fadhiisiyo xisad gaar ah ayaan u sameynay. sidoo kale Zoom-kan caawa aad ku jirtaan oo kalena habeen walba saacada 8 fiidnimo Zoom baan qabanaa. habeen walba la qabto barnaamijyo kala duwanna lagu qabto hadba ay kala duwan sida caawa waa habeenka su'aalaha, habeenada qaar waa tartan uu kala duwan insha Allah. waxaa kaloo jirta xawaalada Sun Express oo ardayda ka caawisa wixii funding talent ama FTM oo furanaya ama 5 years lacag la bixistooda iyo sidoo kale program experience haddii lacag ka dhex taalo lacag looga saaray. guud ahaan Easy Way Learning Academy qaabka u shaqeyso intaas ayaan kusoo koobayaa. su'aalaha ayaan sugi doonaa. aad baa u mahadsan tahay Dr. Hanad. maasha Allah aad buu u mahadsan yahay our CEO Engineer Maxamed Jaamac faahfaahinta guud ee uu ina siiyey. walaalo badan oo Soomaaliyeed oo caawa asxaabta 99 ka ahna waxaan filayaa su-aashii ku taagneed in si fiican looga jawaabay qaabka akademiyada wax looga barto, heerarka la maro iyo sidoo kale qaabka loogu soo biiro. maasha Allah aad buu u mahadsan yahay. su-aal walaal uu soo qoray ayaan soo gudbin doonaa. walaalkan wuxuu leeyahay aniga marka aan wax analyze gareeyo demo dhanka aan u diro ayuu aadaa, marka aan funding talent imaado dhanka u diro aadi mayso, dhanka kale aadaysaa, xaggee wax ka jiraan? CEO Engineer Maxamed Jaamac ayaa su-aashan siinaya. aad iyo aad baa mahadsan tahay Dr. Hanad. waa su'aal aad muhiim u ah ardayda oo dhan laga yaabo markay levelada hore marayaan inay maskaxdooda ay ka guuxayso ama ay arrintaasi ay dareemaan. xaqiiqada markaan ka hadalno suuqan loo yaqaano Forex, marka la falanqeeyo jihada suuqaasi uu aado ama dheema ku gal ama real ku gal isku jiho aadaya. macquul ma aha suuqan kama dhacdo dheema account baad gelaysaa baybu dheemadii aadaya. salaan bayban suuqa u galay dheemadii faa'iido bilowday. isla xaga kale haddaan real sell u galana sellkii xag kale aadaya. macquul ma suuqan hal jiho un buu aadaya oo laga daawanaya. saa darteed laakiin waxaa jira wax un spirit leedo oo marka real account lagu shaqeynayo ama challenge FTM ama fanaawdid dhowr bib oo dheeriyo iska dhacda oo brokeradu ay ku saarayaan taasi way dhacdaa, laakiin waa taasina wax weyn ma aha. dhinaca kale waxaa kaloo dhacda marka xaaladdu dheema ay tahay qofka waxaa laga yaabaa inuusan dheemada ka walwalin
lot size uu doono uu ku galo stop loss uu iska daayo intuu doono uu samri karo daawan karo uu sugi karo dhacda laakiin real account marka la joogo ama challenge FTMO ama fund talent lacag la wado qofku waxa weeye emotionkiisa ama dareenkiisa ma maamuli karayo hadii lacagta minus aado waxa laga yaabaa inuu xamili karo waayo oo kala cararo dabadna hadduu dheemo tusalaan signal buu galay dheemo account buu ku riixay fund talent inuu ku riixay waxa laga yaabaa hadii lacagta minus u yar dhaqaaqdo inuu markiiba fund talent ka xidho gacantiisa ku dhici kartaa hadduu lacagta waxay cabaar uu suganaa dheemadii intay soo noqoto in xay kala aada waa macquul laakiin si guud haddaan soo koobo suuqo dheemo ama real kale isku meel u aadayaa laakiin adiga dareenkaaga iyo waxbarashadaada uu xooj ayaan ku oran lahaa ama santa maasha Allah aad buu mahadsan yahay CEO Engineer Maxamed Jaamac iyo walaalka su'aasha inuu weydiiyaba waan rajeynayaa walaalka inuu ka faa'iideystay su'aashiisana si haqabtiran injineerka uga jawaabay walaalaha su'aalaha waxay kusoo qoran karaan dhanka chat-ka zoom-ka chat-kiisa ayaa kusoo qoran kartaa su'aal kasta oo ku saabsan dhanka brokerska sidoo kale xawaaladdeena Somex Express iyo qaabka waxbarashada akademiyadda Easy Wayland Academy oo furfuritaanka injineerka uu warbixin badan inaga siiyey maasha Allah walaalkan waxa uu leeyahay su'aal ayaan qabaa walaalkan waxa uu leeyahay su'aal ayaan qabaa waa maxay sababta Easy Wayland Academy aan looga trade gareyn maalinta Jimcaha ah su'aasha waxaan siinayaa CEO Engineer Maxamed Jaamac aad iyo aad baa mahadsan tahay walaalkaasna aad baan u salaamayaa horta suuqan forex maalmaha uu furan yahay waa 5 maalmood sida casharada ku barateenba 5 maalmoodba suuqa waa laga shaqaystaa marka alaaba 4 maalmood hore isniinta talaada arbacada iyo khamiista ay macallimiintu waxay bixiyaan live signals oo ay soo galaan maalinka jimcaha macallimiintu way nastaan laakiin taas macnaheedu ma aha inaysan Easy Wayland Academy jimcaha aysan trade gareyn qof kasta ama macallin ha noqdo ama arday ha noqdo ama leader ha noqdo suuqu waa furan suuqi ma xidhna jimcaha qofkii marka chance ayay wuu trade garaya wuuna ka shaqaystaa aad baa mahadsantahay doctor maasha Allah aad buu mahadsan yahay our CEO Engineer Maxamed Jaamac iyo walaalka su'aasha ina weydiiyaba waa rajeynaya inuu ku qancay jawaabta CEO-ga uu soo gudbiyey su'aashan kale wuxuu leeyahay walaalkan Saciid Garowe Ablaan Xamdi Dhuunab su'aasha aan qabo waxa weeye haddaan ku jiro funding talent oo aan minus ku jiro laakiin aanan gaarin heerkii uu ku qarxi lahaa oo waqtiga iga dhamaado anoona gaarin oo aan gaaro 30 days ama 30 maalmood maxaa dhacaya CEO Sharmaaka Cabdirasaaq ayaa su'aashan siinaya maasha Allah mahadsantahay Dr. Hanad ashiisa laga yaabaa inay arday kale oo badan ama asxaab kale oo 99 ka ah ay la socdaan waana su'aalaha ugu badan oo inta badan laga soo weydiiyo funding talent ama FTMO ama dhammaan kambaniyada maalgelinta bixiya oo dhan haddii waqtigii lagugu talagalay oo ahaa bisha account-kii aad gaari weyday targetkii loogu talagalay oo aad kaga gudbi lahayd aad gaari weydo balse ay dhacdo in aad profit haysato haba yaraatee oo balansigii aad ku bilowday profit $1 ama sentiyaba ha noqotee aad kor u dhaafsan tahay sharcigii daily losska iyo maximum losskana aadan jibin waxaad xaq u leedahay automatic repeat inaad samayso oo mar labaad lagu soo diro account-kii oo aad dib markaas challenge-gii bil cusub lagu siiyo haddii balansigaagu waa funding talent haddii balansigaagu uu ka hooseeyo intii loogu talagalay laakiin aadan daily losskii ku dhicin ama shuruucdii aadan jibin laakiin balansiga aad ka hooseyso funding talent program kale oo la yiraahdo Felix ayay qofka ay u overgareeyaan oo waxay yiraahdaan lacag ka yar lacagtii markii hore uu challenge ku bixiyay in uu la baxo kadibna account-kiisii oo Felix ah oo aan challenge ahayn markaas loo furo waxaan filayaa in ardada intii taqaana programkaasna ay fahantay intii kalena ay ka faa'iideysatay waa mahadsantahay Dr. Hanad
ما شاء الله aad buu u mahadsan yahay our CEO Sharmaaka Cabdirasaaq iyo walaalka su'aasha ina weydiiyey waan rajaynayaa in walaalka uu ku qancay jawaabta walaalkan kale waxa uu ina weydiinayaa su'aasheedu waxa weeyaan sidee CEO ku noqon karaa akademiyadda Easy Way Learning Academy su'aasha waxaa siinayaa isla CEO Engineer Maxamed Jaamac oo u faahfaahin doona insha Allah aad buu mahadsan yahay ardaygaasi waa su'aal maasha Allah ninkaasi waa nin hanle weeye haddii arday gabadh yahayna waa gabadh hanle weeyaan wiil hanle aad baan u salaamayaa jawaabtu way fududahay waad noqon karaysaa wax ka hortaagan ma jiraan laakiin waxaa la isku dhaafayaa waa dadaal oo keliya horta marka ugu horreysa ardaygaasi waa inuu level 5 soo dhaafaa oo level 5 yimaada ama soo dhaafaa level 5 oo 8 uu ku nastaa waa tallaabada koowaad weeyaan way qof aan cilmigan forex-ka aan baran leader akademiyada kama noqdo waa inuu qof marka hore cilmigan bartaa si maadaama hogaamiye uu noqonayo waa inuu wixii sharixi karaya oo ardaydii uu diiwaan geliyay oo wixii bari karaya marka shardiga koowaad horta hogaaminta ku xidhan darajada koowaadba waxa weeyaan waa qofku inuu yahay qof cilmiga yaqaan ugu yaraan at least waa inuu soo gaaraa level 5 oo 1 2 3 4 uu soo dhaafaa waxaana kasii fiican inuu 8 tago ayaa ugu macaan oo 8 markuu tago de waxa meesha yaallo dhan iyo kambaniyada waa wanaagsan u shaqeynayaan haddii aan la funding talent haddii aan la FTMO haddii aan la 5 years haddii aan la broker wuxuu yahay wuxuu dhan uu hayaa waa qof suuqa lacag sameeyay qofkaasi ayaa u wanaagsan inuu horta noqdo hogaamiye marka hogaaminta uu levelka yimaado yara leader ba noqonaya waxaa jira qol leaderadu ay joogaan oo lagu tababaro darajooyin ayaana la maraa marka level 8 sida loo tago kale ayaa hogaamintana waxaa loo maraa levelada la maraa ayaa jira marka way fududa insha Allah marka jawaabtu waxa weeye waad noqon kartaa just waxa weeye level 5 soo gaar ama ilaa 8 ka kaalay kadibna leaderkaaga la xidhiid waxaan rabaa inaan hogaamiye noqdo oo ilaa CEO taabto dabadna qolka lagu soo daraya halkaas lagu tababaraya aad baa u maasanta ما شاء الله aad buu u mahadsan yahay CEO Engineer Maxamed Jaamac iyo walaalka su'aasha ina weydiiyaba walaalkan kale wuxuu leeyahay ustaad casharada waxaa nagu bartay in tradeska habeenkii aad iska xirto haddii uu trade kuu furan yahay oo uu jihadii aad u dirtay u socdo laakiin correction galay ma iska xiree mise ilaa maalinka kale waad haysan kartaa CEO Engineer Maxamed Jaamac ayaan siinayaa su'aal aad baa u mahadsan tahay maasha Allah waa su'aal aad iyo aad u fiican ardayda dhan waxaan ka codsan lahaa caawa kale chance ayaad nagu haysataa aniga soo sharmarke su'aalaha wixii maskaxdiina ka guuxaya iska soo dhiga waxaa laga yaabaa inay arday fara badan inay u ayaan ka faa'iideystaan muuqaalkana laga yaabaa sanado badan kadib in la daawado laga faa'iideysto marka su'aasha maskaxda ku jirta aad xal u laadahay soo dhig insha Allah halkaas ka soo dhig dhinaca kale dan su'aasha ku soo noqdo ardaygu ina weydiiyey horta markaa suuqa aad falanqaysid lacagta aad analyze garaysatid halka ay aadayso ay ku caddahay ilaa meeshaad ka filaysa ay ku caddahay hadday habeen noqoto iyo hadday maalin noqoto lacagta waad hayn kartaa lacagta waxaad ka bixi kartaa markii aad go'aansatay oo aad aragtay in suuqani uu kala jeestay ayaad ka bixi karaysaa suuqan hadduu kala jeestay oo aad ogaatid in ruleski suuqani uu kala jeestay kusoo baxay calaamadii kusoo baxeen lacagta waa iskaga bixi kartaa ma hayn kartid laakiin lacagtu haddii jihadii aad u dhigatay ay u socoto oo ay jihadii aad u dhigtay kugu socoto waad hayn kartaa habeen iyo laba iyo maalin baad hayn kartaa waayo brokerada isticmaalno waa wada islaamic account baan ka qaadanay wax riba kuma saarna interest kuma saarna saadarteed waad hayn karaysaa taas intaas ka tagaya shardi kale aad uga bixi karto waxa weeye lacagta ka soo qaad haddii aad leedahay adigu daily target dadku way kala duwan yihiin qaar baa daily target leh oo maalinkii ku xisaabtama target uu gaaro dadka qaar waxay ku xisaabtaan weekly target bay ku xisaabtaan qaar baa monthly ku xisaabtaan adigu haddaad tahay ka soo qaad daily target aad tahay haddii daily targetkii maanta tradadaada aad ka faa'iiday tradada kii ku fur waad iska xiri kartaa oo wax khasaaraha oo badan aan kugu hayn si daily targetkaaga u difaacatid marka labada nooc baad uga bixi karaysaa ayaan ku talin lahaa laakiin cilmiga hala barto hala soo socdo xisadaha live-ka macallimiintana hala galo si aad culum kale oo fara badan aad u heshaan cilmigu marna ma dhamaado waxa la bartaa ayaan ku talin lahaa mahadsanid ما شاء الله aad buu mahadsan yahay our CEO Engineer Maxamed Jaamac iyo walaalka su'aasha ina weydiiyaba waan rajeynaya dhammaan walaalaha inay ka faa'iideysteen su'aasha walaalka uu ina weydiiyey walaalkan kale waxa uu ina weydiinayaa jaaniska challenge-ga ma hal mar kaliya lagugu celinaa mise bil kasta ayaa lagugu celinaa haddii aanan ruleska jebin wuxuu ka wadaa saan u fahmay challenge-yada la maro
brokerska ama kambaniyada bixiya challenge-yada waxaan siinayaa su-aasha CEO Sharmaaka Cabdirasaaq. si kooban mar walbo aadan sharciga jebin oo sharcigii lagugu talagalay khasaarada waxaana aadan samaynin balansigaaguna uu intii ka koreeyo targetkiina aadan gaarin ilaa 100 jeer ba ha noqotay way kugu celinayaan. maasha allah aad buu mahadsan yahay CEO-geena Sharmaaka Cabdirasaaq. isla su-aal taa aan ka fogeyn waxayna weydiinaya walaal kaleeto waxa uu leeyahay shirkadaha maalgelinta bixiyaan daily losska trade-ka oo ii furan haddii uu gaaro $500 miyay ii xisaabinayaan mise markii aan ku xiro khasaarahaas ayay ii xisaabinayaan? CEO Sharmaaka ayaa mar kale siinaya. dhammaan kambaniyada maalgelinta bixiya sharciga u yaala ee ah inaadan daily losska gaarin waxay xisaabinayaan khasaaraha kuu furan oo ah floatingka midka socda ayaa lagu xisaabinayaa. kasoo qaad haddii lagu yiri ma gaari kartid khasaarahaaga maalintii $1,000 haddii 1,200 ama 1,300 intuu trade-kaas gaaro uu soo noqdo marka dambe oo uu TB-da kugu dhaco $5,000 mar walbaba sharciga waa jabisay akaankuna uu kaa xirmaya. marka khasaaraha socotaa la xisaabinaya. maasha allah aad buu mahadsan yahay CEO Sharmaaka iyo ardayga su-aasha ina weydiiyey. walaalkan kale waxa uu leeyahay su-aal ayaan qabaa maxaa loo waayay maclimad ka mid ah macallimiinta Easy Way Learn dumar badan baa ku jira akademiyadda waana aragnay ayagoo gudbinaya FTMO ama Funding Talent iyo 5 ERS iyo sidoo kale real account ba. su-aasha waxaan hordhigayaa CEO Engineer Maxamed Jaamac macallimiinta iyo dhanka gabdhaha. aad baa u mahadsan tahay. horta waa run maasha allah hablo badan baa haddeer gudbay weliba xilliyadii u dambeysay oo level 8 si xaragala ku tegey oo aan tiro lahayn maasha allah dhammaantood hambali ayaan leeyahay. insha allah waa arki doontaan dhowaan haddii lahaydno gabadh ka mid a macallimiinta oo suuqa ku raaxaysanaysa. inkastoo dhowr gabdhood aan la xidhiidhay informationada ay siiyeen ay ahayd macallin suuqaan shaqayna ay noo kaadi ay yidhahdeen haddana suun dhaqso insha allah waan rajaynayaa inaad gabadh aragtaan insha allah. mahadsanid. aad buu u mahadsan yahay CEO Engineer Maxamed Jaamac iyo walaalka su-aasha ina weydiiyaba. maasha allah. ardaygan kale waxa uu leeyahay Funding Talent haddii aan gudbiyo lacagtii fiiga ahayd ma la ii celinayaa? midda kale group Funding Talent lacagta aan ka shaqaystay ee isiinayaan ma la hubaa weli qof qaatayse ma jiraa itus itaabsii ma laygu tusin karaa? CEO ardaygaas ama saaxiibkaas haddii uu 99 yahay waa group telegram ah. insha allah tacaala injineerka waxaan ka codsanayaa inuu linkigiisa u dhigo qaybta chatka ah si saaxiibkaas iyo kuwo kale oo badan ay usoo raacaan halkaasayna ku jiraan dhammaan itusoo itaabsiyadoo ah. aad baa u mahadsanta. maasha allah aad buu mahadsan yahay CEO Sharmaaka Cabdirasaaq iyo walaalka su-aasha ina weydiiyaba. su-aaltaa iyadana aan ka fogeyn ayaa walaal kale uuna weydiinaya. assalaamu calaykum ustaad Funding Talent-iga yaa iska leh teeda kale ma xalaal baa? CEO Sharmaaka Cabdirasaaq ayaan siinayaa. Funding Talent waa company gabar dhalinyaro ah oo u dhalatay waddanka Canada ay asaastay. wuxuuna ku yaalaa waddanka Canada waana company sharciyeysan oo ka mid ah kambaniyada kale ee waaweyn sida FTMO oo isaguna waddan ka mid ah wadamada Yurub ku yaala. waana barnaamij u fududeynaya qofka dhalinyarada ah ee doonaya inuu suuqan ka shaqaysto lacag ku filanna aan haysan laakiin aqoontii haysta. marka runtii fursado aad u badan bay dhalinyarada u samaysay. wuxuuna la mid yahay suuqa caadiga ah ee laga shaqaysto wax gaar ah oo isagoo aanan ahayn in uu kuu fududeynayo inaad awood u yeelato aqoontaada inaad isticmaasho. marka ilaa hadda waxaan ku dhihi karno waa xaaraan ma jirto. waana company sharciyeysan waddanka Canada ku yaala 100 kun oo adduunka kala joogana ay ka shaqaystaan. aad baa u mahadsantahay doctor. maasha allah aad buu mahadsan yahay CEO Sharmaaka Cabdirasaaq iyo walaalka su-aasha ina weydiiyey. dhammaan walaalaha su-aalahooda dhanka chatka ayay kusoo qoran karaan.
walaal su-aashan in weydiinayo waxa uu leeyahay tartanka sagaalka ma loo celin karaa waxa uu la jeedaa waa tartanka ardayda CEO engineer waa mahadsan tahay timeka horta la soo galo hadeerto waa 8 fiidnimo saacadda geeska Afrika Soomaaliya time marka tartanka keligii sagaalka lama geyn karayo marka kulli hadeerto jadwalku 8daas ayaa la wada degan yahay mahadsanid aad buu mahadsan yahay injineer maxamed jaamac iyo sidoo kale walaalka su-aashayna weydiiyey maasha allah su-aalaha walaalaha oo aad u badan su-aalaha isku midka ah hal xab ayaan ka qaadan doonaa si jaanis aan u siina walaalaha kale ee su-aalaha soo qoranaya su-aashaada dhanka jaadka waa kusoo gudbisan kartaa ardayga markuu furanayo account real ah oo uu galayo challenge ma isagaa kala dooranaya funding talent iyo FTMO mise akademiyadda ayaa u doorta ardayga su-aashan waxaan siinayaa CEO Sharmaake ardayga isagaa dooranaya accountka uu rabo noocii uu rabo sida uu rabo annaga waxaan ka caawinaa oo keliya sidii aan ugu fududayn lahayn inaan usoo furno wixii tala markaa uu nooga baahan yahayna waa siinaa casharo badanna qaybteenna youtube-ka ee easy waylandna way ku jiraan marka ardaygu isagaa xor ah isagaa wuxuu rabo doorta kadibna waa ka caawinaa annagana maasanta aad buu mahadsan yahay CEO-ga iyo ardayga su-aasha ina weydiiyeyba walaalkan kale waxa uu leeyahay su-aal 7 levelis ee kale ee akademiyadda waa la isla xisaabtamaa markii aan tago qolka level 8 isla xisaabtan ma jira CEO engineer maxamed jaamac ayaa su-aashan siinaya aad baa mahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah ardayduna inay fahmaan ay muhiim tahay ardaygaasna aad baan ugu mahad celinaya xaqiiqatan wuxuu og yahay in xisaabtan levelada kale oo dhan ay ka jiraan waxaa laga yaabaa arday badan inaysan ka warhaynba xisaabtankaas oo ay qoraalka iska dhex fadhiyaan marka leveladaas oo dhan waxaa yaala isla xisaabtan rules bay leeyihiin ardaygii ku xadgudbana uusan kasii mid ahaanayn akademiyadda saa darteed level 8 maya level 8 waxaad noqonaysaa dee waxaa weeye kabahaaga lama xidhan karo markii ardaydu odhan jireen marka halka waa lagu maamusayaa haddaad ratid macalinimaad isu diyaarinaysaa haddaad ratid hogaamiyaad isu diyaarinaysaa haddaad suuqaad shaqaysaa cid halkaa shaqo kaa rabtaa ama suuqii ma gashay oo sheekin ku samaynaysaa ama ka gudub ka oranaysaa xilligan ma jirto marka xilligan level 8 bustaha ayaa la dhiganaya insha allah waa mahadsantahay maasha allah aad buu u mahadsan yahay our CEO engineer maxamed jaamac iyo walaalka su-aasha ina weydiiyaba dhammaan walaalahana aad baan ugu mahad celinaya su-aalaha qiimaha badan ay soo qoranayaan walaalkan wuxuu leeyahay ustaad trade ayaa fursad u arkay marka stop loss meesha aan dhiganayo ee gidaar dabadiis ah hadduu ka badan yahay biib ahaan faa'iidada aan raadinayo maxaa samayn karaa CEO engineer maxamed ayaa mar kale siinaya aad baa mahadsan tahay Dr. Hanad waa su'aal kale oo ina aad muhiim u ah xilliga marka aad falanqaynaysid waad falanqaysay gidaar dabadii waad eegatay waxaad inuu kugu fogeeyo aragtay trade-kaas oo kale waa la iska daayaa haddii faa'iido khasaaradiisu uu ka badan yahay faa'iidada aad rajaynaysid trade-kaas faraha laga qaadaa suuqa kaa badan lacagaha kaa badan aduu lacagteeda aad haysatid baad iska leedahay saa darteed waxaan ku talin lahaa in qofku uu ka gabado waa mahadsan tahay maasha allah aad buu u mahadsan yahay CEO-ga iyo sidoo kale ardayga su-aasha ina weydiiyey walaalkan waxa uu leeyahay level 8 qofka haddii uu tago maxaa looga baahan yahay ma kasii mid ahaan karaa akademiyadda isaga oo aan ahayn macallin iyo leader mise waa inuu upgrade ahaadaa sida leveliska hoose CEO engineer maxamed ayaa su-aashan siinaya aad baa mahadsan tahay ardaygu haddii uu level 8 tago isaga ikhtiyaar u ah inuu macallin isu diyaariyo isaga ikhtiyaar u ah inuu leader isu diyaariyo yara leader halay tababaro isaga xor u ah inuu yara labada midna mar rabo qolkana waan joogayaa oo waxa weeye suuqan shaqaya saddex option bisa iskale marka xitaa laga saari maayo qolkaas uu dhex joogi karaya waa mahadsantahay maasha allah aad buu u mahadsan yahay our CEO engineer maxamed jaamac iyo walaalka su-aasha ina weydiiyaba walaalkan kale wuxuu leeyahay salaamu calaykum waan idin salaamay labada CEO iyo Dr. Hanad aad baan kaaga qaadna walaal soo dhawow
magacaygu waa Cabdullaahi waxaan jeclaystay inaan kusoo biiro akademiyadda Easy Way Learn Academy. Haddii aanan haysan credit card ma furan karaa broker? CEO Sharmaake Cabdirasaaq ayaan siinayaa. inaad broker furato iyo inaad kaar haysato iskuma xirna. Marka waa furan kartaa adoo aanan haysan banki kaar, laakiin waxaad u baahan tahay inaad haysato documenti caddaynayo qofkaa tahay, ama ID ama passport iyo warqad sheegaysa adresska meesha aad degan tahay oo nootaayo ay kaaga qoran tahay. marka intaa haddaa haysato khasab maaha, sababtoo ah qayb waxaan leenahay tiimka ah oo ah xawaaladda Som Express, taas oo kuu fududaynaysa in si dhaqso ah lacag lagugu deposit gareeyo meel walba aad joogtid. haddaa withdraw u baahatana si dhaqso ah lagugu withdraw gareynayo. marka arrinkaa waa laga maarmay kaarka ah. waa mahadsanta. maasha allah, aad buu umahadsan yahay CEO Sharmaake Cabdirasaaq iyo su-aasha ina weydiiyey walaalkaba. su-aashan waxa uu leeyahay walaalkan, macalin Funding Talent ama FTMO stop loss ma qasaba mise waa laga maarmaa? CEO Sharmaake ayaa mar kale siinaya. Funding Talent iyo FTMO khasab maaha inaad stop loss gashato. programka keliya oo intaan xasuusto stop loss inaad gashato ay khasabka ahayd waxa weeye barnaamijka la yiraahdo 5ERS wuxuu qofka uu ku khasbayaa inuu stop loss u leeyahay. laakiin FTMO iyo Funding Talent codka iska xir Dr. Maxamed Mooge insha Allah codka iska xiro. marka saas weeye Dictora, waa mahadsan tahay. uma baahna stop loss Funding Talent iyo FTMO, laakiin way kuu fiican tahay inaad stop loss leedahay. maasha allah, aad buu umahadsan yahay CEO Sharmaake Cabdirasaaq iyo walaalka su-aasha ina weydiiyey. leaderska waxaan ka codsanaya microfoonada inay inoo ilaaliyaan, codka iska xiraan. walaalkan su-aasha uu ina weydiiyey dhowr jeer waxaan filayaa waa ka booda iyo soo qoray. broker leh ama laga heli karo Bitcoin ma jiraa? CEO Sharmaake ayaan siinayaa. broker Bitcoin leh haddii uu ka wado dhinaca depositka ma lagu samaysan karaa brokerka Bitcoin? haddii uu ka wado haa, waa lagu samaysan karaa. brokerka aan isticmaalno oo ah midka ugu badan ee ardaydeena isticmaalaan ee FX Primus, waxaad ka deposit gareyn kartaa lacagtaada haddaad haysatid cryptocurrency Bitcoin, iyo haddaa haysato Skrill, iyo haddaa haysato banki kaar, iyo midda annaga aan fududayno ee localka ayaan kuu samayn karna. marka haddii uu middaa ka wado yes, ha, waa la samayn karaa. aad buu umahadsan yahay CEO-ga iyo walaalka su-aasha ina weydiiyey. su-aashan kale walaalkan waxa uu leeyahay, labadan su-aal waan israacin doonaa. Funding Talent 100,000 swap free ma leeyahay ustaad? sidoo kale withdrawalka Som Express faahfaahin naga siiya. CEO Sharmaake Cabdirasaaq ayaan siinaya labada su-aal ee dul saaran. waa mahadsan tahay Dr. Hanad. Funding Talent waxaan u malaynayaa muddo hadda aan fogeyn waxay soo kordhiyeen inay ka dhigeen dhammaan akoomada ay furayaan inay yihiin swap free iyo inay yihiin commission la'aan inay yihiin. spiritkooduna uu aad iyo aad iyo aad u yar yahay. marka aan furayno Funding Talent-ga waxyaabaan ku arka waxaa ka mid ah accountka 25 markaan furayno automatically wuxuu kuu soo saarayaa swap free. accountka 100,000 marka aad furato waxaa u diraysaa email baa u diraysaa, aad u sheegaysaa accountka aad furatay iyo numberkiisa intaadan trade gelin. waxaad dhahaysaa waxaan u baahanahay in swap free laga dhigo. marka swap free ayay kaaga soo dhigayaan. marka taa insha Allah xisaabta ku darso. su-aasha kale oo ku saabsan xawaaladda, muddo laga jooga 1 sano waxaan bilownay inaan u samayno tiimka ku xiran Easy Way Learn Academy iyo dhammaan dhalinyarada traderska ah in ay linkigeena ka qaadan karaan qaybta website-ka ah oo uu ku qoran yahay linkigeena gaarka ah ee xawaaladda FX Primus. arday kasta ama macmiil kasta ama trader kasta oo linkigeena uu uga furan yahayna xawaaladdu waxay si easy ah ugu fududaynaysaa iyadoo isticmaalaysa linkigaas in loo deposit gareeyo loona withdraw gareeyo sida ugu dhaqsiyaha badan. markuu soo withdraw gareeyo wuxuu soo codsanayaa
meesha lacagta loogu soo shubaya hadduu u baahan yahayna EVC oo telefonkiisa ah ayaa loogu shubayaa si degdeg ah haddii uu doonayo inuu bangiga ama Premium ama Salaama banki uu yiraahdo igu soo dirana waan ugu dirnaa waxaan kaloo u sameynaa xawaaladaha kale ee caadiga ah ayaa u sii marinaa qofka hadduu joogo madlada ayaan isla markiiba u dhignaa kadibna lacagtiisa saasuu ku helaa marka insha Allah tacaala servicekaas waa diyaar dhalinyaro badan oo hadda groupka ku jirtana waa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan oo ay maalin walba lacaga kala soo baxaan aana u dirno aaminna ay tahay aad baa mahadsantahay maasha allah aad buu mahadsan yahay CEO Sharmaaka Cabdirasaaq iyo walaalka su-aasha ina weydiiyey hadda oo aan xiisada ku guda jirnana xawaalada Som Express fariin ah ayaa ii timid marka waxaad ku ogaan kartaa degdegteeda xiisada ka hor inaan lacag dalbado isla haddana ay soo gaartay marka waa waqti ka yar 30 daqiiqo gudahood Som Express waa xawaalad aad u degdeg badan CEO Sharmaaka Cabdirasaaq aad baan uga mahadcelinayaa su-aasha uu inooga jawaabay iyo walaalka ina weydiiyaba walaalkan kale waxa uu leeyahay haddii real account ii furan yahay oo aan wax trade ah furnayn level 6 ama 7 ma u gudbi karaa mise waa inaan account cusub furtaa CEO Engineer Maxamed Jaamac ayaan siinaya su-aasha aad baa umahadsantahay doctore ardaygaasna aad baan u salaamayaa level 6 iyo 7 waa lagaga gudbi karayaa real account waa inagii dhawaan fasaxnay saa darteed rules ayuu leeyahay oo laga eegayo sida lotiska uu ku galay oo la rabo lotiskii loogu talagalay accountkan lacagta ugu jirto inuu ku galo for example hadduu $100 ku trade garanayo waa inuu 0.01 waa inuu soo dhaafay tradeada wuxuu ku geliyo hadduu 200 haysto kale 0.02 oo kale marka lotiska casharada ku soo bartay ayaa raba accountka inuu u dhigmo inuu ku galo amaba hadduu ka yaran karo inuu ka yaray sidoo kale waxaa rules ka mid ah tradeadiisu dhan wada leeyihiin stop loss ay wada leeyihiin muhiim maaha maalmaha bil iyo xilli eegmay hal maalin hadduu ku shaqeeyo oo wixii laga rabay akoonka uu ku daro ardaygaas waa gudbaya oo baasaya oo waa 10% waxa laga rabo saa darteed ruleska qolkooda ayuu dhex yaalaa qolkaas la oogaya marka account real hadduu ku furnaa hadduu xidhnaa iyo leegmay waxa uu leeyahay ma shaqaysay wixii laga rabay ma ofiisan baa laga rabay muhiim maaha inaad account real furatid kaagaas aad ku gudbi karaysaa ama waxaad ku gudbi karaysaa FTMO ama funding talent ama 5 years kuwaasna waa lagu ogol yahay inaad kaga gudubtid levelka loo yaqaan level 6 iyo level 7 saad ay dhigtaan maasanid aad buu mahadsan yahay CEO Engineer Maxamed Jaamac iyo su-aasha walaalka inuu weydiiyey walaalkan kale waxa uu leeyahay aniga oo account real ah ku leh FX Premise ma ku furan karaa account kale linkiga Easywayland Academy si aan u isticmaalo xawaalada Som Express CEO Sharmaaka ayaa su-aashan siinaya maya sidaa ma samayn kartid FX Premise waagii hore qofku wuxuu furan karay 5 account 6 account intii uu doono ayuu furan jiray hadda waxay sameeyeen qaab system ah oo ah in aad profileka ama inta adigoo aad leedahay documentigaaga ku xiriirsatay oo hal mid oo kaliya noqdo laakiin aad furan karto MT4 kala duwan waxaa kaloo samayn kartaa codsi ayaa u diri kartaa FX Premise waxaadna u sheegaysaa master ID-ga qaybta numberka xawaalada ayaa u sheegi kartaa waxaa dhigi kartaa waxaan doonayaa in la ii soo wareejiyo account-kayga oo la iigu soo xiro qaybta xawaalada qoraalkaasna insha Allah anigana waa soo weydiin kartaa abshir oo qaybta xawaalada noogu qoranna waa soo weydiin kartaa Engineer Maxamed Jaamacna waa soo weydiin kartaa insha Allah marka waa lagu soo siinayaa qoraalkaas kadibna waa dalbanaysaa saas ayaana lagugu soo wareejinayaa laguguna xirayaa marka uma baahnid inaad account kala furato aad buu u mahadsan yahay CEO Sharmaaka Cabdirasaaq iyo walaalka su-aasha inuu weydiiyey waan rajaynayaa in laga qabtay su-aasha uu qabay walaalkan su-aasha uu ina weydiinayo waxa uu leeyahay laba su-aal ayaan israacin doonaa ustaad haddii aan broker hore uga furtay account aan isticmaalay linkiga Som Express xawaalada lacag ma iiga saari kartaa iyo su-aal kale oo ah ma waajib baa in maalin walba aan trade qaato funding talent iyo FTMO Chairman Sharmaaka ayaan siinaya su-aasha okay su-aasha koowaad insha Allah haddaan ku hormaro haddii aad tahay arday ama macmiil ama trader ku xiran linkigeena yes lacag waa lagaga saari karaa lacagna waa lagugu shubi karaa marka taas wax mushkilada ma lahan haddii cilad ay kaa haysato waxaad la soo xiriiraysaa qaybta xawaalada abshir
ama aniga insha Allah ila soo xiriiri kartaa kadibna cilada markaa ku haysta waa ku xalinayna haddaa usoo noqdo su-aasha labaad FTMO iyo funding talent ku saabsan hal mar iigu soo celi waa yar dhaaftay su-aashaas walaalka waxa uu leeyahay FTMO iyo funding talent qasab miya maalin walba inaad trade qaato okay yes okay funding talent khasab ma ahan sida waxaan leeyahay FTMO khasab ma aha qofku inuu maalin walba uu galo trade laakiin marka ay noqoto funding talent programmo kala duwan bay leedahay haddii programkaagu yahay midka challenge-ga ah khasab maaha inaa maalin walba aad suuqa trade gasho haddii programka aad ku jirtaa uu yahay qaybtan kale ee la yiraahdo Felix Classic la yiraahdo midaas waxaa bishii laga rabaa in aad gasho muddada bisha aad haysato ugu yaraan waa inaad furtay 12 trade 12 trade inaad furtay macnaheedu waxay noqonaysaa asbuuci kastaba in aad furto ugu yaraan 3 trade inaad furto asbuuc walba marka laakiin waa program gaar ah oo xisaabtiisa iyo wixiisa wata macluumaadka dheeriga ah waxaa ka heli kartaa qaybteena YouTube-ka ah ee Easy Wayland Academy haddaa ku dhufato funding talent macluumaadkeeda oo dhan khayr la siiya waxaa duubay CEO Engineer Maxamed Jaamac maasha Allah aad buu mahadsan yahay Chairman Sharmaake su-aasha labada su-aal ee uu inooga jawaabay iyo walaalka ina weydiiyaba aad baan uga mahad celinaynaa su-aashan waxa uu leeyahay walaalkan su-aal ayaan qabaa waxay tahay level 6 iyo 7 ma challenge funding talent iyo verify miyaa looga gudbaa mise shaqo kale ayaa la iga rabaa CEO Engineer Maxamed Jaamac ayaan sii aad baa umahadsantahay sidoo kale ardaygaasna aad baan u salaamayaa levelka loo yaqaano level 6 waxaa lagaga gudbaa dhowr waxyaabood oo kala duwan kow waxaad kaga gudbi kartaa funding talent ama FTMO ama 5 ERS saddexaas baa lagu ogolyahay waxaa kaloo lagu ogolyahay real account inaad kaga gudbid afarta option baad haysataa kaad dooranaysid ikhtiyaarka adaa iska leh ee aad ku gudbaysid waayo haddaad qaadatid ka soo qaad aad tiraahdo waxaan kaga gudbayaa funding talent siisa wuxuu leeyahay challenge iyo verification buu leeyahay challenge-giisa ayaad kaga gudbaysaa level 6 marka 7 loo geeyana verification haddaad ku baasid ayaad 8 ku tagaysaa FTMO-guna waa la mid saas la mid yahay haddaad qaadatid 5 ERS aad tiraahdo 5 ERS baan kaga gudbayaa 5 ERS wuxuu leeyahay hal challenge buu leeyahay halka challenge ayaad kaga gudbaysaa level 6 marka level 7 loo geeyana waxaad kaga gudbaysaa maadaama challenge-ga halka mar ku soo baastay lacagtii caadiga aad ku shaqeynaysaa account funding ay ku dhibiyaan hal bil baad shaqeynaysaa dad 10% account-ka ku dartid oo ay ku soo xaqiijiyeen qolada 5 ERS 7na waad kaga gudbi karaysaa waxaan filayaa saddexaas inay dhayin real account hadii loo yimaadana real account waxa laga rabaa oo kaliya xilligan 10% inaad ku dartid account-ka capital-ka kugu jira 7kana 10% baa laga rabaa waxaan filayaa warkaas inuu cad yahay 6 iyo 7 ba isaa ku dilay marajeynaya mahadsanid Victoria maasha Allah aad buu mahadsan yahay CEO Engineer Maxamed Jaamac sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa CEO Sharmaake Cabdirasaaq iyo walaalaha su'aalaha tirada badan weli soo qoraya aad baan uga xumahay waqtiga oo inahaya dartii waqtiga xiisadaan ugu talagalnay oo 1 hour ahaa 1 hour-kii uu inaga soo dhamaaday waan rajaynayaa su'aalo badan oo caawa kugu taagnaa in CEO-yada ay ka haqabtireen xiisadan oo duubanna waxaad ka heli kartaan Easy Wayland Academy YouTube-ka iyo sidoo kale Sahal Software labada YouTube ayaad ka daawan kartaan xiisadan su'aalo badan oo caawa halkan la isku weydiiyana waan rajaynayaa qof walba uu ku taagan yahay in uu cashirkan dib ugu laaban doono kana heli doono su'aalaha waxaan si gaar ugu mahad celinaya CEO-yadana qaaliga ah Engineer Maxamed Jaamac iyo Sharmaake Cabdirasaaq oo walaalaha Soomaaliyeed fursad qaaliya u horay waan ogahay mashquulaalo badan oo Soomaaliyeed oo caawa u baahnaa sidoo kale walaalihii su'aalaha soo qoray iyaguna aad baan ugu mahad celinayaa kuwa weli soo qorayana mar kale waan ka xumahay waqtiga ayaa inaga dhacay insha Allah habeena kale ayaa CEO-yada soo heli doonaa sidan oo kale fursado kale ayaa inoo ballanaa insha Allah inaan su'aalihiina ku soo bandhigno su'aalaha gaarka ah waxaad weydiin kartaan liidarada caawa idinku marti qaaday barnaamijka ama xiisada iyo qoralka aad ku jirtaan haddii ay ahaan lahayn xogaha bendinada iyo telegram
programyada dhammaan akademiyada Easy Way Learning Academy leaderskeeda waa mid su'aal kasta oo aad qabtaan insha Allah leaderkii ka hor yimaada marka ayaa ka caawin doona kuna xalin doona insha Allah. Okay, weli chatka ayaa lagu soo qoray su'aalaha masha Allah aad baad u mahadsantihiin. walaalaha su'aalaha gaarka qaba insha Allah CEO-yadeena fursad kale ayaa mar kale siin doona insha Allah ay idinku hor yimaadaan idinkagana jawaabaan su'aalaha idinku taagan. Mar walbana waxaad kala xiriireysaan liidarada idin soo caawiya caawa inay xiisadan ka soo qayb gashaan qolalka aad ka mid tihiin ee xogaha iyo bendinadana su'aalaha insha Allah liidarada ugu gudbiya ayaga ayaa si toosa idinkaga jawaabi doona. CEO Engineer Maxamed Jaamac ayaa sii doona kelmadaha gunaanadka iyo xiisada. aad baa umahadsan tahay doctore sidoo kale CEO Sharmarke oo barnaamijka loo qarnana aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale dhammaan leaderska macallimiinta ardayda iyo asxaabta kalena waa salaamaya mar kale dabcan caawa habeen gaar ayay ahayd sidoo kale habeen walba zoomka waa soo galnaa barnaamijyaduna way kala duwan yihiin commentiyada ardayda iyo mahadcelintana aad baan ugu jeedaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ballankeenu markaa waxaan leeyahay waxbarashada xoogga ha la saaro su'aal ka soo qabto waxbarashada dhexdeeda ayaad ka helaysaa xiisadaha macallimiinta life signals ay ku bixiyaana saddex xilli oo kala duwan weeye mid ka mid ah haddaad waqti u helisid bustaha duldhigo oo maalin walba soo gal haddaad laba soo geli kartidna kaba fiican mar kastoo marka waxbarashadii aad wadid practicalkiina aad samaynaysid oo suuqii aad gelaysid cilmigu halkaas ka soo baxaya caqabada jirtaa markaad soo boodaysaa isla markaana caqabada ha qarsana qolka aad ku jirtid levelka soo dhex dhig ama upline-kaaga ama macallinkaaga su'aasha weydii su'aalaha ha qarsan isa soo dhaafi waxa way Soomaaliya xitaa geel labada jir soo wada mar waxan waa la soo wada maray macallinka soo daad arkaysid waxa way ana hadda ku hayso ayuu soo maray marka marnaba ha isdhiibin ayaan ku talin lahaa su'aalaha soo qor dadalkana hal laba jibaaro trainkana dadna way sii saarnaan doonaan dadna way daadan doonaan ha noqon qof dadka ka daatay niyad jaba ha noqon dadka adkaysta ee xijista caqabad kasta u adkaysta noqo waan huba caqabado fara badan ay la kulmaysaa adkaysigeeda yeelo haddaad adkaysatid marka level ka gudubtid farxad ayaa dareemaysaa waan ku ogahay sidoo kale mar kale waxaan u mahadcelinayaa oo u hambaleynayaa dhammaan ardaydii maalmihii u dambeysay soo dhaaftay level 6 kuwii soo dhaafay level 7 iyo kuwii soo gaaray level 8 yimi dhammaantood waxaan leeyahay waad guulaysateen insha Allah si degan suuqa ugu raaxaysta waqtigii waa dhacay waa sii wadi lahaa laakiin time ma haysto dhammaantiin guulaysta ballankeena wax barto shaqaysta waarmaysa wana ka haro back to you doctor aad buu mahadsan yahay our CEO Engineer Maxamed Jaamac sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa CEO Sharmarke Cabdirasaaq oo caawa si talantaaliya su'aalaha ardayda ee qabaan walaalaha Soomaaliyeed inooga jawaabayay leaderska caawa panelka ila saaran ee aad ku tirada badan ayaa iyaguna aad ugu mahadcelinaya maadaama waqtigu naga dhacay aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal xiisadeena caawa ee weydiin iyo warcelin halka ay inoogu egtahay kulankii liidarada ayaa inoo jira leaderska kulanka kale u wareega insha Allah aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum